kusoo dhawaada janalka Radio Raaso waan ku faraxsanahay inaan ishaleelno waxaana ka codsanaynaa inaad rukumato warbixinadeena adiga oo dooranaya halka ay ku qoran tahay subscribe kadibna riixaya gambaleelka ku agyaal subscribe-ka waad ku mahadsan tahay walaalkeena nagu qaaliga ah kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada barnaamij walaadka toddobaadka ee ka baxa Radio Raaso qodobada xiisaha badan ee ku maqli doontaanna waxaa kamid ah koodi ama sebaad ama madax furasho ayay kaga qaadaan dadka shacabka wixii ka soo haray oo ay qaadi waayaan baabuur inta kalena hal qof ama $100 uma soo harto ninka gaariga leh maxay tahay lacagta intaan la eg aniguba kama hele laaluush baan u bixinaa bay leeyihiin oo live qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeysata dekedda magaalada Muqdisho ayaa ka cabanaya laaluush xad dhaaf ah oo looga qaado marka ay galayaan afaafka hore ee dekedda Muqdisho kulan dood cilmiyeed oo looga hadlayo sidii la isaga kaashan lahaa badqabka wariyaha iyo dimuqraadiyadda xorriyatul qowlka ayaa Muqdisho lagu qabtay dood cilmiyeed ku saabsan doorka ay saxaafaddu ama saxaafadda xorta ay ka qaadan karto horumarinta dimuqraadiyadda nabadeynta dalka iyo guud ahaan horumarinta Soomaaliya runtii saxaafadda Soomaaliya muddo dheer ay ku soo jirtay dhibaatooyin fara badan waxaad ogtiin wariyaal fara badan inay naftooda u waayeen iyagoo ka shaqeynaya shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Mooyaale ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee gobolka Liibaan ayaa ku dhawaaqay in dawladda Itoobiya ay ka dambayso xasuuqa ay qowmiyadda Oromada ku hayso dadka Soomaaliyeed iyo barakac horle oo laga soo sheegayo deegaanadaasi saraakiil Oromo ah ayaa lagu qabtay magaran iyo hubkood aan ku adeynayna saraakiil macnaha meesha ku tirsan yihiin iyo lambarkooda iyo waxooda iyo darajadooda walahay magaran hadda lama tira koobin lama macnaha geerida ma yaro labada geerida waa jirtaa dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa in ay bacqafiif ku gashanayaan saraawiisha kadib markii uu ciriiri ku noqday dharkii ay isticmaalayeen بعد هالترنيه سروالك واكنا وجدا ملينا مركه سروالك بعد way fududeynaysa wakaasoo jida marka adii la xirto oo bacda lugta gelinaysa marka way fududeynaysa hol fududeen waxaan wallahi niyo ciriiriya dareemay oo surwaalkii dhaqsama baxaayo cabaar inaa yani siibtid saacado oo qaadana afayeenka gobolada Jubbooyinka ayaa ku dhawaaqay in magaalada Kismaayo ay joogaan maleeshiya beeleedyo ka amar qaata dawladaha Kenya iyo Itoobiya kana soo horjeeda hanaanka dawladnimo ee Soomaaliya waxaa sababay Axmed Madoobe taagtahay maleeshiyada uu hordoogan ka yahay waa maleeshiya beeleed waxayna ka siman yihiin ciidamada Kenya iyo maleeshiya beeleedka Axmed Madoobe dawladda Soomaaliya wax raad ku leh ama ciidan xoogga dalka Soomaaliya waxa la yiraahdo uusan shaqo ku yeelanin lagu xakin gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo iyaga si xoogga gacantooda ugu jirta taasoo faahfaahinna waxay ka soo baxayaan weerar qasaare badan dhaliyay oo lagu qaaday xero ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose iyo Al-Shabaab oo guulo ka sheegtay weerarkaasi dawladda Soomaaliyana waxa ay ku dhawaaqday inay burburisay xarumo ay Al-Shabaab ku tababari jireen askarta kana soo abaabuli jireen qaraxyada oo ku yaalay degmada Qoryooley iyo waliba nawaaxigeeda qodobada dibadda aan idinku haynana waxaa kamid ah dab qasaare badan dhaliyay oo ka kacay dalkaasi Greega iyo qof shacab ah oo u dhashay dalkaasi Falastiin oo ay toogteen ciidamada Israa'iil
intaasi waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon barnaamij wareedka toddobaadka ee Radio Raaso. iminkana kusoo dhawaada qodobadaasi oo faahfaahsan. qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqaysata dekedda magaalada Muqdisho ayaa cabasho waxay ka muujinayaan laaluush xad dhaaf ah oo ay sheegeen in looga qaado marka ay galayaan afaafka hore ee dekedda magaalada Muqdisho. afayeenka gaadiidleyda ayaa sheegay in dekedda magaalada Muqdisho uu ka socdo takoor iyo weliba laaluush aysan awoodin oo lagu qasbayo inay bixiyaan. wariye Cabdullaahi Xaaji ayaa warkan inoo akhrinaya. qaar ka mid ah gaadiidleyda ka shaqeysa dekedda magaalada Muqdisho oo soo gaaray idaacadda ayaa waxay sheegeen in ay ka cabanayaan in gaadiidleyda qaar oo loo ogolaaday dekedda Muqdisho inay ka shaqeeyaan kuwa kalena loo diiday. Cali Faarax Cunaaye oo sheegtay afayeenka gaadiidleyda dekedda magaalada Muqdisho laga celiyay ayaa ka warbixiyay sababta gaadiidkooda dekedda magaalada Muqdisho looga celiyay, isagoona sheegay in lacag sharci darro ah laga qaado iyaga halka qaar ka mid ah gaadiidleydana aan laga qaadin wax lacag ah. koodhi ama sebaad ama madax furasho ayay kaga qaadaan dadka shacabka wixii ka soo haray oo ay qaadi waayaan baabuurta. inta kalena hal qof ama baabuurka gelaya ay ka qaadaan madax furasho waxay kaga qaadaan $2,000 oo diboost. waxay ka qaadaan kabacdi boonada baydhay kii gelaya ee ay wixii ay qaadi waayaan ay u sii daynayaan $150 bay ka qaadaan. asagana $100 uma soo harto ninka gaariga leh. markaad tiraahid maxay tahay lacagta intaan la eg, aniguba kama hele laaluush baan u bixinaa bay leeyihiin oo life. lacagta maaliyadda deka iridaan ku bixinaa waa shakhsiyaadka leysamada u leh dekedda ee 6 kambani ah. dad binafsiyaha naga qaada waxaana siinaa bay yidhaaheen dowladda oo aan laaluush u bixinaa waa midda xafiisyada dowladda iyo amniga lagu wasaqeeyo oo dadabkaa lagu dilaya weeye. ma aha wax dowladda qaad, ma aha wax rasiid kuma goynayaan. 10 baaboonada ku qoran 150 147 ka badan intaas baa u yar ayay ka qaadaan. sidoo kale waxa uu sheegay in gaadiid badan ay shaqo la'aan ku dhacday kadib markii lacagtaasi ay awoodi waayeen. waxa uuna baaq u diray madaxda dowladda isagoona ka codsaday inay wax ka qabtaan dhibaatada ka jirta dekedda magaalada Muqdisho. 5,000 oo tareele inta ka badan ayaa garasyada ku baaba'day oo dantay dadkoodiina odayaalkii iyo caruurtiina ay sariir macluula saaran yihiin. ilmihii intii socon karana badda ay ku daad. dulmiga intaas leeg baan ka dacwoonaynaa oo ka cabanaynaa oon u gudbinaynaa garsoorka, aqalka sare, madaxtooyada, ra'iisul wasaaraha, madaxweynaha, muxuu ahay meel walba ayaanu kaga cabanaynaa in ay wax ka qabtaan. baaqa ugu dambeeya waa leeyahay ka baqa wax ka qabta cabashadayada dhibaatada nala ku hayo oo dadweynaha wax ka qabta. wax koodhi baa nala ka qaadaa aan Ingiriis iyo Talyaani naga qaadin. cabashada ay muujinayaan gaadiidleyda qaar ee ka shaqeysa dekedda magaalada Muqdisho ayaa imaanaysa iyadoo war dhawaan ka soo baxay guddiga amniga qaranka lagu sheegay in gaadiidka dekedda ka howlgala ay shaqeeyaan 24 saac. xiriir aan la sameeyay maamulka dekedda magaalada Muqdisho ayaa inoo suurto gelin inaan qadka taleefanka ku haleelno si aan wax ugu weydiino dhibaatada la sheegayo inay ka taagan tahay dekedda magaalada Muqdisho. aad baad u mahadsan tahay Cabdullaahi Xaaji. kulan dood cilmiyeed oo looga hadlayo sidii la isaga kaashan lahaa nabadqabka wariyaha iyo dimuqraadiyadda xuriyatul qowlka ayaa Muqdisho lagu qabtay. kulankan oo laga tala siiyay ka qaybgalkooda beesha caalamka iyo madax ka tirsan dowladda Soomaaliya ayaa qabsoomay, waxaana hadallo badan ka jeediyay madax badan oo ka tirsan dowladda iyo weliba beesha caalamka. wariye Cabdiqani Bashiir Xaaji haynoo dhammaystiro. kulankan dood cilmiyeedka ayaa ahaa mid looga hadlayay sida la isaga kaashan karo sidii looga shaqeyn lahaa nabadda iyo dimuqraadiyadda, waxaana ka qayb galay xildhibaano, wasiiro, xubno ka socda beesha caalamka iyo qaar ka mid ah madaxda warbaahinta madaxa bannaan ee dalka. xogeyaha guud ee ururka suxufiyiinta qaranka Soomaaliyeed ee Nusaj Maxamed Ibraahim Macalimow oo ka hadlay ujeedka kulanka ayaa sheegay in muhiim ay tahay in laga wada shaqeeyo sidii loo ilaalin lahaa xurriyadda hadalka iyo nabadda dalka.
sidoo kale maxamed ibraahim macalimow ayaa hoosta ka xariiqay in weli wariyaasha soomaaliyeed ay ku shaqeeyaan marxalad adag sida dilal iyo handadaad loo geysto xilliyada ay ku jiraan howlahooda shaqo taas oo ka dhan ah xorriyadda hadalka iyo dimuqraadiyadda. ururka saxafiyiinta qaranka Soomaaliyeed maanta waxaa sharaf weyn u ah inay halkan ku qabtaan dood cilmiyeed ku saabsan doorka ay saxaafaddu ama saxaafadda xorta ay ka qaadan karto horumarinta dimuqraadiyadda, nabadeynta dalka iyo guud ahaan horumarinta Soomaaliya. runtii saxaafadda Soomaaliya muddo dheer ayay ku soo jirtay dhibaatooyin fara badan. waxaad ogtihiin wariyaal fara badan inay naftooda u waayeen iyagoo ka shaqeynaya sidii ay dalka u gaarsiin lahaayeen xogta ay u baahan yihiin. sidaa darteed waxaan halkan ku casuunay oo maanta marti inoo ahaa wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya Michael Keating oo aan uga mahad celinayno imaatinkiisa halkan iyo sidoo kale su'aalihii la weydiiyey iyo waxyaabihii uu ka hadlayay. runtii ujeedada kulankan ay qayb ka ahaayeen bulshada rayidka oo ay ka soo qayb galeen ururada maaragtay kala duwan Soomaaliyeed saxafiyiinta waxay ujeedkiisu ahayd sidii loo abuuri lahaa isdhexgal iyo maaragtay isfaham ku salaysan sidii ay horumar weyn saxaafadda Soomaaliya u samayn lahayd. Si kastaba ha ahaatee Soomaaliya ayaa ka mid ah dalalka ugu badan ay ka dhacaan tacdiyadaha ka dhanka ah arrimaha xuquuqul aadanaha kuwaas oo loo geysto dadka barimageedada ah oo ay ka mid yihiin wariyaasha Soomaaliyeed. shacabka Soomaaliyeed ee ku nool deegaanka Mooyaale ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ee gobolka Liibaan ayaa ku dhawaaqay in dawladda Itoobiya ay ka dambayso xasuuqa qowmiyadda Oromada ay ku hayso dadka Soomaaliyeed waxaana la soo sheegayaa in barakac horle ay ka bilowdeen deegaanadaasi. wariyaheena magaalada Jigjiga Farxiye Xaaji ayaa inoo soo dirtay. in ka 100 oo qof oo Soomaali ah ayaa ka barakacay dagaalka muddooyinkii dambe ka socday isla markaana u dhaxeeya Soomaalida iyo Oromada ee degta dalka Itoobiya waxaana ay Soomaalidani u baxeen meelo badan oo ay ka mid tahay deegaan lagu magacaabo Kuuji iyadoona halkaasi ay ku haysato xaalad nolol xumo. Axmed Sheekh waa mid ka mid ah dadka ka barakacay dagaalka Oromada iyo Soomaalida waxa uu hadda ku sugan yahay deegaanka Kuuji. laanta afka Soomaaliga ah ee VOA-da ayuuna la hadlay isagoona sheegay in dadka halkaasi ku sugan ay ku jiraan haweenkaasi oo ku dhaxgoodoosan aag dagaalo ay ka socdaan. Soomaalida iyo Oromada degta dalka Itoobiya ayaa weli ka dhex taagan dagaalkaas oo ka dhashay barakac xoogan waxaana jirta in ciidamo la dhex dhigay isla markaana aysan weli ku guuleysan in dagaalka ay soo afjaraan. aynu ku sii darnay dhanka kalena waxaa waraysi gaar ah la yeelanay oday dhaqameed ku sugan deegaanka Mooyaale oo ka warbixiyay sida ay wax u dhaceen iyo waliba cadeymo uu sheegay inay u hayaan in dawladda Itoobiya ay ka dambayso dagaalka xasuuqa ah ee lagu qaaday dadka shacabka Soomaaliyeed. saraakiil Oromo ah ayaa lagu qabtay magar iyo hubkood shacabka baawaxan balaas daawa lagu qaaday maana ma haysta maana ma arkay oo kuwa soo magar aan ku cadeynaynaa saraakiil macnaha meesha ku tirsan yihiin iyo lambarkooda iyo waxooda iyo darajadooda wada haya magar hadda lama tira koobin hadda lama macnaha geerida ma yaro labada dambe geerida waa jirtaa sida isaga nala rabay alxamdulilah ilaahay waa noo qabtay
dhibku iska jiraa dhammaad wax dib noo geystay oromada maaha waa federaal ma garan maan soomaalida gacanta ku haysa ma garan halka laabo oo maanta sheegan karta malaha ma garan oo jeedada waxaa waay macnaha wadankan anaga ale haddaan garab haysanaa macnaha wasaarihiya macnaha xaggeena ah in macnaha oo wadanka soomaalida laga saaro oo macnaha go-aan isla qabaan macnaha maaragtay federaalkana macnaha maaragtay wixii xaggiisa macnaha isla qaban wey ma garatay guryaha la gubaa jira kadhila ayaa jira ciidamada federaalka maalinta soo diri jireen macnaha maaragtay dad oo 20 hayaay oo macnaha maaragtay oo shacaba laayana jirta oo ama ciidamada isku dhex jiraan waxaaba ku cadaynayaa daawacoodii dowladda qaado isbitaalkiisa kuwaana macnaha geedaha hoostooda ku dhammaanaya ma garatay marka kuwaan maxaa geedaha hoostooda ku laayay kuwaana maxaa oo dowladda usoo gurmatay oo inta qaado meel kasta geynaysa ma garataa sabcadeena ma garat waa wada degaan macnaha maaragtay diilan baa dhexdooda taala marka waxaas oo in la baabay magaca soomaaliyeed ee la dagaalamaya oo ninka ka soo horjeeda ma garatay gacana waxuu ku wadaa macnaha maslaxad oo aan jirin oo afka dhe walooshan jirin marka kullahaal waxaad moodaa in macnaha soomaalida usoo kartay ninka ma garanin oo qaab kusoo baxay inuu egyahay ma garan marka alxamdulilah kulley wax dagaalama waa anagana alxamdulilah rag baa nahay wixii karaankeed kulley ama dowladdii ha noqoto ama intii isbahaysatay ha noqoto waa iska celinay intaas oo isbahaysi oo qabiil ah isku soo daramay weligood ma dhici jira ma garan marka waa wax macnaha maaragtay oo xaggiisa kalsooni ka haysan wey ma garatay kolley hadda maanta waxaan ka maqlaa in ciidamada federaalka military iyo booliskaba inuu amray in macnaha dhexgalaan iyo amray haddii macnaha saas noqoto waa nabad haddii macnaha maaragtay ciidamo oo soomaali loo soo diro haddii taana kolley wixii kasoo bax waa ogaan doona ma garan marka kullahaa dowladda waxaan ku cadaynaynaa daas oo teesara military leh oo darajadoodii iyo lambarkoodii iyo macnaha meeshay iyo qiibka ku tirsan yahay dhammaan iyo macnaha la wada qabsiyo lahay oo yaa lagu qabsi sidaasaan ku dhamaaday ma garan haddiinta horta taasaa nagu filan maanta federaalku ma jira waa ku jira maana murankood ma taagna ma garan soomaalida kolley waa dad maaragtay isku kalsoon oo meesha joogan isku kalsoon oo maaragtay wixii dadaanka weligeen ma dadaansanin gardarada ma lihin wadankeena nagu soo weerareen in macnaha magaca soomaalida macnaha meesha laga saaro iyo macnaha maaragtay hadalkooda ma garan waxaaba ku cadaynayaa daawacoodii waa la qaadaa oo maaragtay federaalka intuu qaado ilaa saba ilaa shamil ilaa gubba meel kasta lagu shubo ma garan anagana kuween maxaa geedo hoostooda ku laayay oo dowladda macnaha labada dham haddii u siman tahay labada dhaawac waa qaali kuwa federaalka laayeen oo 20 dhowr qof ah oo macnaha maaragtay oo baawarka gaashaman oo la dagaalamayso oo adeenkeeda aan hayno hata dhaawac lama qaadin dhibkooda lama soo qaadin dhibkooda lama qaadin waxaaba dhacday ciidamada federaalka in hal haadeen macnaha toban hayaay meed macnaha turbariyeen oo aan la qaadaan tarkiideen ma garan kaasi waxa uu ahaa oday dhaqameed ku sugan deegaanka Mooyaale oo waraysi gaar ah siinayay idaacadda Raaso stuudiyihiisa magaalada Muqdisho. dhalinyarada ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa la sheegayaa inay bacqafiif ku gashanayaan saraawiisha kadib markii uu ciriiri ku noqday dharkii ay isticmaaliyeen. dhalinyarada ayaa xirata sanadahan dambe dhar ku dhagan oo markii ay xiranayaan iyo markii ay bixinayaanba dhabku ah, kuwaasi oo dantu ay ku qasabtay inay u isticmaalaan gasashada iyo weliba bixinta bacqafiifta. wariyaheena Nuur Cabdiraxmaan ayaa warbixin inooga diyaariyay. dhalinta maanta gaar ahaanna wiilasha waxay u labistaan qaabab kala duwan, qof walibana waxa uu u arko inay yihiin wax qurux badan ayuu sameeyaa. tusaale, wiilasha intooda badan waxay xirtaan saraawiil ay balac ahaan ay ka bixiyeen qaarka hoose gaar ahaan lugaha. saraawiisha ay xirtaan wiilasha ayaa ahayn kuwo siman oo markay suuqa ka soo iibsadaan waxay haddana geeyaan harqaan si looga soo jaro ama looga yareeyo qeybaha hoose ee lugaha, iyaga oo ka yaraysiinaya
qaybta sare ee sarwaalka halka wiilasha qaarna ay sarwaalka marka ay jaraan kadib ay ku gashtaan bac maadaama ay si aad ah u yareeyeen ama ay isugu dhejiyeen oo aysan dhaafin karin lugta. haddaba si aynu u ogaanno xog badan oo ku saabsan dhallinyarada iyo sarwaalada ay xirtaan ayaynu la kulannay qayb ahaan dadka ay sheekadani qusayso. wallaahi horta su'aalka waxaan u jirnaa ama aan u yareynaa aniga waxaa micnaha inuu istalkina soo saara aaminsanahay ma fahan. waa Cabbaas Cabdulaahi Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada saraawiisha lugaha ka bixiya. waxa uu ka hadlayaa sababaha ay u yareeyaan saraawiisha iyo faa'iidooyinka ay ku qabaan. wallaahi horta su'aalka waxaan u jirnaa ama aan u yareynaa aniga waxaa micnaha inuu istalkina soo saara aaminsanahay ma fahan. sababtoo xilliga hadda lagu jiro oo 2018 markaan ka hadalno waxaan u aragnaa inay fashion tahay caalamka aan jaan qadeeno markii wax kale macnaha uma jirno oo inuu macnaha istalkiisa macnaha oo istalkana saxo anagana macnaha aan qurux ka raadina u jirnaa waa macnaha dhallinyarada sidii aaminsan yihiin badankooda fashion ahaan oo aaminsanaa sidaas aan u jirnaa oo macnaha aan qarash u gelinaa oo anaga soo gadno oo lacag ka soo bixinay aadan mid kale aan ku sii qurxino oo macnaha aan ku gaabino aan u gelinaa ma istalkana saxina dareema oo macnaha ii sheeg maxaa lahaa oo sheekada Alfarax ay tahay waagi hore maqlajis macnaha hudi Alfarax wala jirin mugti oo la bixin jiray sidoo macnaha lagu soo qaadan jiray marka noocaas oo egtay macnaha qofka waa dambeeyaa wiili macnaha ii sheeg maxaa lahaa istalka lama qabsan camal ana si ka duwan Cabbaas Cabdibaasid Cabdi Barre waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aan saraawiisha lugaha ka jarin ee sida uu ku soo gaday ku xirta. waxa uu dhankiisa ka hadlayaa dhallinyarada saraawiisha yareysa iyo dhibaatooyinka ay la kulmaan. waxaas wax fiican maahan taas waxaa waaye waxay ay ka aaminsan yihiin inay inta yareystaan ay steel ku saxayaan laakiin wax steel kuma saxmaayo waayo waarid kuma hortegi karto waxaas haddii waxaas aa waarid kala hortagtiin waxay ku leeyihiin aqaarnimo waxaan kuma jirta waxaan iska soo bedelay ku leeyihiin sidaas darteed aa liskaaga dhaafaa marka in surwaalka la iska yareeyo. wallaahi sayskaada waa taqaanaa maahanoo meesha markaa tagta sayskaada la soo gadanaya kuwa la jaraane laba lacag waaye laba khasaaro waaye adoo soo gadaya haddana sii jaray hadduu rabo kugu yaraa kariyaa. wallaahi dhibaatooyinka ugu waaweyn oo lala kulmi karo waxaa waaye adiga wax walbaa ku qabsan karo ina orda u baahan kartaa surwaalkaas dhabka u markaa ordu maagtid waxaa laga yaabaa inay si fiican uga ordi weyso markaas laa dukanah oo kale waxaa laga yaabaa inuu jilbaha kaaga dhigo wax walba ay kuu qabtaan. waa goob harqaan ah oo lagu talo dharka ragga iyo dumarka. waxaa iga muuqanaya goobtan 4 harqaan oo dharka lagu tulayo iyo 3 dhallinyaro ah oo sugaya dharka la tulayo. Caamir Cabdiqaadir Maxamed waxa uu ka mid yahay dhallinyarada aan kula kulmay harqaanka. markii aan la hadlayay waxa uu xiranayay sarwaal isagoo isticmaalaya bac qafiif si uu ugu gashto. waxa uu ka sheekaynayaa sarwaalka bacda lagu gashanayo iyo sababta ka dambaysa. bacda horturniyahu sarwaalka waa kana ujeeda malena marka sarwaalka bacda way fududeynaysaa oo kaas ujeeda marka hadii la xirto oo bacda lugta gelinaysaa marka way fududeynaysaa hor fududeyn waxaan wallaahi niyo cariiriya dareemay oo surwaalkii dhaqso ma baxaayo cabaar inaa yacni siibtid saacado oo qaadanaa haa wala dhihi karaa dhibaatay ku tahay laakiin qof walba bini'aadana yacni isteelkiisa asigaa yaqaan sax marka isteelkaygan ku jira islaah aniga. dharka la xirtay iyo qof waliba sida uu ugu soo baxo muuq ahaan waa ay kala gedisan yihiin. Axmed Maxamed Cilmi waa maamulka harqaanka. waxa uu ka hadlayaa saraawiisha hoos laga jarayo ama laga bixiyo si loo yareeyo balaca hoose iyo dhibaatooyinka ay ku qabaan. dharka hoos laga jaray dhib aad u weyn oo ku qabnaa qofkii wuxuu ku leeyahay maradan iijar marka u jirtid hooshii aa u wadid wuxuu ku leeyahay maradan way anfici weysay dhab iga dhigtay ku celi marka dhab iga dhigtay kala ka dhigtay wuxuu ku leeyahay okay waan rabo waay waxaan rabaa ku leeyahay inaan bac ku gashto dhar dhalinyarada qof si waa qof wuxuu ku leeyahay dharka inuu ii dheeraadaan rabaa si fiican igu dheeray inay igu dhijisaan rabaa qofna wuxuu ku leeyahay inuu ii gaabnaado oo siiskay oo noqdo oo dhab oo ku noqdo oo jecel yahay ma laba si waa bacda markii lagu gashanayo gooni waa markii caadi yahay gooni waa bacda markii lagu gashanayo iyo markii caadi tahay laba kala tahay qofkan markii walba wuxuu sameeyaa inuu meel fariistaraasado markaas oo bac ku gashan karaa kan kalena caadi isku taagan oo gashan karaa dharkiisa. inkastoo ay kala duwan tahay qofka iyo sida uu u labisanayo ayaa haddana waxaa muhiim ah ilaalinta dhaqanka wanaagsan oo ay nafarayso diinteena suuban ee islaamka iyo dhaqanka wanaagsan ee lagu garanayo dadka Soomaalida ah. afhayeenka gobolada Jubbooyinka ayaa waxa uu ku dhawaaqay in magaalada Kismaayo ay joogaan maleeshiyo beeleedyo ka amar qaata dowladaha Kenya iyo Itoobiya kana soo horjeeda hanaanka dowladnimo ee Soomaaliya. magaalada Kismaayo ayaa cabasho xoogan ka soo baxaysa
taas oo lagu qabo maamulka uu hogaaminayo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. Cabdirashiid Macalin Gaas oo ah hafayeenka gobolada Jubbooyinka oo wareysi gaar ah siiyay Radio Raso ayaa shaaca ka qaaday in magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland ay joogaan maleeshiya beeleed xoog ku haysta shacabka ku dhaqan magaaladaasi, kuwaasi oo ka amar qaata dowladaha Kenya iyo Itoobiya, madaxna uu yahay hogaamiye Axmed Madoobe. waa sida uu hadalka u dhigay. Cabdirashiid Macalin Gaas ayaa sheegay in Kismaayo aan wax maamul ka jirin oo kooxdan gaar u haya dowladaha Kenya ay joogaan, laguna gubay calanka Soomaaliya iyo sawirka madaxweynaha, midka dalka Kenyana xabadka ay ku dhigsadeen, dadka joogana ay yihiin kuwa ka soo horjeeda nidaamka dowladnimada Soomaaliya. waxaa sababay haddii Axmed Madoobe saad og tahay maleeshiyada uu hortoogaha ka yahay waa maleeshiya beeleed magaalada Kismaayo lagu abuuray 2011 ayaa si xoog ah lagu keenay meesha ciidamada Kenyana keenay halkaana ku kobcinayay oo ku beeray, waxayna ka siman yihiin ciidamada Kenya iyo maleeshiya beeleedka Axmed Madoobe in dowladda Soomaaliya wax raad ku leh ama ciidan xooga dalka Soomaaliya wax la yiraahdo uusan shaqo ku yeelanin lagu hakin gobolada Jubbooyinka gaar ahaan magaalada Kismaayo oo iyaga si xoog gacantooda ugu jirta, taasoo cadaynaysa waa kuwii calanka Soomaaliya gubayay, sawirka madaxweynaha gubayay, sawirkii Uhuru Kenyatta iyo calankii Kenyana ku dhigtay xabadkooda. marka taas cadaynaysa adeer waxa lala dirirayo waa nidaamka dawliga ee Soomaaliyeed, ciidamada xooga dalka Soomaaliya ee dalka u dhashay. saxaafadda ereygaasi badan baan u sheegnay. Kismaayo wax maamula kama jiro. Jubba waxaa la yidhaahaa webiga saddexda gobol soo mara ee webigan kalena loo yaqaana joo la yidhaahaa Baasta Jubbo iyo Aalta Jubbo. awal baa la oran jiray markii waddanka uusan xornimada qaadanin, laakiin meeshan maamul kama jiro. idinku saxaafaddartiin waxaad isku taxallujinaysaan in aan yacnaha waa xag jirtaan laydin oran, laakiin meeshan maleeshiyad beeleed dad qalataa oo dadka Soomaaliya ku xasuuqa magaalada Kismaayo, ciidamada Kenyana ay gacmaha u qabteen baa jooga. maamul kama jiro. calankii Soomaaliya lagu gubay meel hadee maamul ka jirana calanka laguma gubo Soomaaliya. calanka Soomaaliya ninkii gubana waa nin cadowga Soomaaliya nin Soomaaliya ma aha. marka ereygaas iska daaya, dambina waa idinku yahay, dadkiinana dambiga ka gelina, dadkiinana dambiga ka gelina. maleeshiyad beeleed Ethiopia iyo North Eastern laga soo aruuriyey oo magaalada Kismaayo lagu abuuray yaa meesha ku xaraysan. magaalada Kismaayo waa 7 kiiloomitir, gurweyn ma gaari karaan, shacabka Soomaaliya habeen ma dhaxbari karaan. marka samcaynkaasaa meesha ka magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose ayaa hadda maciinbiday in shacabka lagu dulbo kadib markii ay soo shacbaxeen cabasho badan oo dhanka shacabka ah, kuwaas oo ka sheeganaya dhanka maamulka Axmed Madoobe. faahfaahinna ayaa waxa ay ka soo baxayaan weerar khasaare badan dhaliyay oo lagu qaaday xero ay ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. Al-shabaabna waxa ay guulo waaweyn ka sheegteen weerarkaasi. waryaheena Cabdullaahi Cadaani haynoo dhameystiro. faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya weerar culus oo saaka aroortii hore al-shabaab ay ku qaadeen gudaha deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. weerarka uu ku bilowday qarax ismiidaaminaha ayaa la sheegay in lagu qaaday saldhig weyn oo ciidamada maamulka Jubbaland ay ku leeyihiin gudaha deegaankaasi, waxaana la sheegay inuu xigay dagaal toos ah u dhaxeeyay labada dhinac kaas oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. xarakada al-shabaab oo ka hadashay weerarkan ayaa guulo ka sheegatay weerarkaasi iyo dagaalka xigay intaba. afhayeenka dhinaca howlgallada al-shabaab Sheekh Cabdicasiis Abu Muscab oo la hadlay wakaaladda wararka Reuters ayaa sheegay in weerarkaasi ay ku dileen ilaa iyo 27 askari oo ka tirsanaa ciidamada maamulka Jubbaland. sidoo kale afhayeenka ayaa intaasi ku daray in dagaalyahano ka tirsan al-shabaab ay gudaha u galeen saldhigga kana fuliyeen howlgal ballaaran sidoo hadalka u dhigay. dhinaca kale waxaa kulan xasaasi ah kule magaalada Kismaayo mas-uuliyiinta wasaaradda amniga Jubbaland iyo saraakiisha hogaaminaysa ciidamada maamulkaasi ee ku sugan saldhigga la weeraray ku yaala deegaanka Baarsanguuni. kulankan ayaa sida uu qorshuhu yahay diiradda lagu saari doonaa weerarkii xooganays lagu qaaday gudaha deegaanka Baarsanguuni ee gobolka Jubbada Hoose. saldhigga la weeraray ayaa qiyaastii 50 kiiloomitir u jira magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka maamulka Jubbaland, iyadoona marar badan
weerar qorsheysan halkaasi ay ka fuliyeen al-shabaab oo weli ku xoogan gobollada jubbooyinka ee koonfurta soomaaliya. warkaasi uu inoo akhrinayay cabdulaahi cadaani waxa uu u dambeeyey barnaamij wareedkeenii toddobaadlaha ee aad kala socoteen raadiyaha raaso istuudiyihiisa magaalada muqdisho. tan iyo barnaamij ciinkan oo kale intaynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo iyo weliba kaalimo sugaana. iridkaagan dogolka mawluhu ku daahiyo ibna dhuxusha moodiyo marmar dib uga faydiyo sanqaroorkan soo degay indhadeeraale madaxishoodka markaad noqontaa dadabta ballaygu didaya qolayga daraya indhadeeraale dumarugu filroonay dayax 15 dahab lagu masaali galoogu daraye indhadeeraale socodka damacadwe degenida tallaabada miisaanka lagu daray lafyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawus laamoodye markaad socodka degenida tallaabada miisaanka lagu daray afyaha la daawado dadku waxay yidhaahdaan may daarin ciide daawus laamoodye day madaxishoodka markaad luquntaa dadabta dadbaa laygu didaya oo layga daraya indhadeeraale dumarugu filroonay dayax 15 dahab lagu masaali dadakay 17 galoogu daraye indhadeeraale day madaxishoodka markaad luquntaa dadabta hadbaa laygu didaya oo layga daraya indhadeeraale dumarugu filroonay dayax 15